السلام عليكم maanta way taariikhdu tahay 30 bisha 11 sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaal shaqo ku jooga dalkan Qatar oo kulan la qaatay amiirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani madaxweynaha iyo amiirku kulankoodan waxay iskula soo qaadeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga labada dal iyo labada shacab madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu amiirka uga mahadnaqay dawladda Qatar mashaariicda wax ku oolka ah ee ay ka fuliyeen dalkeena oo ay ugu horeeyaan mashaariicda wadooyinka isku xidhaya Muqdisho Afgooye Muqdisho Balcad iyo Jowhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiiri gelinaya dawladnimada Soomaaliya waxa sidoo kale ay dawladda Qatar ka fulisay mashaariic wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dawladnimada dalkeena amiirka dawladda Qatar dhankiisa waxa uu uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay waqtigan oo laga furayo dalkan Qatar ciyaaraha koobka kubadda cagta ee Carabta oo maanta uu ka furmi doona dalkan Qatar waxa sidoo kale oo amiirku uu dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba ku bogaadiyay sida ay isugu duuban yihiin ugana shaqeynayaan horumarka dalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kulankan ku weheliyay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdisaciid Muuse Cali iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada mudane Xamza Saciid Xamza iyo safiirkeena inoo fadhiya dalkan Qatar danjire Cabdirasaaq Faarax Cali Tano waad mahadsantihiin